hambalyeeyo ugana mahadceliyo ciidamada puntland ee geesiyaasha ee goob kasta oo puntland ku taalla runtii kafaalad qaaday in aynu nabadgelyadan maanta aynu ku ciidayno inaynu ku dhiibno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin bacd allahna iyaga yaan uga mahad celinaya waxaan rabaa inaan reer puntland u caddeeyo una sheego fariimaha soomaalidiidku ay soo dirayaan ee doonayaan khalkhal inay shacabka tahay ummadda tahay iyo ciidamada ee ah puntland waanu heshiinay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku noqonaynaa meesha la yidhaahdo boqorad iyaguna waxaan ku noqonaynaa gambare iyaguna meeshoodii iyo joogaya waxaan malinayaa madaxweynuhu isaga iska hadlaya una malayn maayo markaan u sugaysanayn heshiis noocaasii jiro laakiin ani yidhi dad iska reebo war waxaan idin rajaynayaa dhamaan intaan ka wada sheekaysanay gaal iyo muslimiinna ma jiro wax suurtagalana maaha in ninku yidhaahdo war gurigaagii 10 qol ahaa qolka ugu yar kaga jir inta kalena waan haysanayaa dee suurtageli mayso puntland waxay diyaar u tahay maanta dalka inay difaacdo in ay xorayso labadaba intii ku dhimatay waxaan leeyahay waxay ku jireen dagaal xaq ah meesha ay ka leeyihiin aakhirana waa loogiya waa janno wey ilaahay jannatul firdaws ha geeyo intii ku dhaawacantay waxaan leeyahay ilaahay ha idinba uga dhago dowladdiinnuna way ka garab taagan tahay iyo shacabkiinnu labadaba waxaan rabaa hawl kale inaan taabto oo ah beesha caalamka wararkeedu hadda uu aad inoogu badan yahay beesha caalamku waa niman dan leh waa niman dhaqaale aan cidna kala xisaabtamin gacanta ku haya oo cun inay diyaarado laba qof soo kaxaystaan habeen dhaxoodana qaataan ayaga dani ugu jirtaa laakiin wixii aan dani inoogu jirin inaynu aqballo ama ka qaadano maaha doontooday nimankaas meelaha u marmaraan waxaan idiin sheegayaa wixii aanay dan ka lahayn maba soo qaadaan sidaad la socotaan sool iyo sanaag iyo cayn 12 bishii ugu dambeeyey kacdoon dhab ah oo lagu diidan yahay maamulka soomaalidiidka ayaa ka jira inta aan ka warhayo cid ka hadashay oo beesha caalamkii haba yaraataase badnaatay ma jirto shalayda ugu dambaysay waad ogtihiin dad baa lagu dhaawacay gabdhaa lagu dhaawacay dhallinyaraa lagu dhaawacay la xirxiray xitaa waxaa loo diiday inay garoowe yimaadaan si ay isu daweeyaan waxaa la yidhi tegi maysaan garoowe ama halkan ku dhinta ama hargeysa aada in beesha caalamku ay ka hadasho inta wax aan iyaga dani ugu jirin annagana dani noogu jirin ay meelaha la warwareegayaan war ummaddan la xasuuqay ee la xidhay ee la bahdilay ka hadlaanu leenahay haddii aydan taa ka hadlaynin aydaan ka hadlaynin dee adeer waxaad nagala hadashaan baaba iska yimid